نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka koowaad Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadsan ina soo waafajiyay goobtan qiimiga badan wacdaraha aan arkayna ka dhaceen Allah subhanahu wa ta'ala ayay mahadda u sugnaatay kadib waxaa mahadsan oonu mahad celinayaa Sheekh Cabdiraxmaan markaskan Jaamicul Ansaar ee xaqiiqatan mirihiisa aan goobjooga u nahay wixii halkan ka dhacay aan wada arkayne Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka Allah subhanahu wa ta'ala ha u saaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal nicmooyin badan buu Allah subhanahu wa ta'ala ayuu ina siiyay nicmooyinka Ilaahay uu ina siiyay kuwa ugu qaalisan waa ubadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hiba ayuu ku tilmaamay Ilaahay kaligiis baa bixiyaa yahabu liman yashaa'u inathan wa yahabu liman yashaa'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yashaa'u 'aqima ubadka marka diinta islaamka Ilaahay diintiisa xambaareen kitaabka quraanka fasirkiisa say u fasireen aad arkayseen xaqiiqatan waa wax qalbiga uu ku qabowsado tafsiirka quraanka kariimka wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo talaqi culumta idilna ay u baahan tahay talaqiga waxa weeyo ardayga cilmiga inuu sheekh toos oga qaato luqa carabiya kaliban garani quraanka kariimka kuma fasiri kartid ardada hadda Sheekh Cabdiraxmaan uu inoo soo bandhigay meelihii ay akhriyeen waxa kamid aha suuratu Yuusuf wajaa'at sayyaratun ba kamid ahayd hadiiba waliga cilmiga talaqi aadan ku sameeynin sheekh aadan hor fariisanin macnaha la soo bixi lahaa wuxuu noqon lahaa gaari baa imaade sayyaradana gaari loolama jeedo wax kale loola jeedaa wa annahu ta'ala jaddu rabbina rabbigeena awowgiisa hadaad meesha la soo fariisata ka waran cilmiga marka talaqi buu u baahan yahay aad iyo aad baan ugu faraxna xaqiiqatan ubadkii meesha la soo joojiyay tafsiirka quraanka kariimka erayada say isku saarahayeen aayada macnaheeda say u dhuuxahayeen xaqiiqatan sidoo shaqadan uu sheegahaye rag badan oo cimaamado waweyn oo muxuu ahaaye garka inta uu dhan yahay culimo isku yaqaaniin yaanan inta fasiri karin juhdi iyo dadaal bay ku imaad mirahaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka curiye ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala sababta ooga dhigay Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo waxaad ogsoontiin walaalayaal wadanka hadda aan ku noolnahay xilliga hadda aan ku guda jirno waa xilli iskuulada ay xiran yihiin fasax dheer baa lagu jiraa ubadka waxaa la rabaa waalidka xilliyadan oo kale ilmaha inaad programyadan oo kale ooga faa'iideysiin intan iskuulka uu xiran yahay canuga inaad tiraahdo orod tafsiirka quraanka soo baro orod muxuu ahaaye Ilaahay kitaabkiisa soo muraajice dhalinteena Soomaalida xaqiiqatan social media markaad gasho Soomaalida waxaad orani mustaqbalkeeda mugdi fara badan baa ku jira ubadkii soo kacahayeen baryahan dambe social media markaad gasho dhalinteena guddi wadooyinkii bay muxuu ahaayay gawaarida isku dhigahay wadooyinkii ayay gawaarida isku dhigahay dadka dad wax la bara ma aha dad la soo tarbiyeeyo ma aha waa dad tarbiyadii ay ka dhuntay maxaa yeelay markay yaraayeenbo Ilaahay kalaamkiisa laguma shubin Ilaahay quraankiisa laguma shubin tarbiyadii baa marka halawde canuga quraanka kariimka qalbigiisa waxa ugu horeeya ku dhaco haduu noqdo canugaasaytow inuu halaabo wayarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa quraanka kariimka ubadka inaan kula dadaalno gaar ahaan xilligan fasaxyada lagu jiro waxa la rabaa waalidka inuu isa saaro xil aad weyn maxaa yeelay canuga haduu adiga ka soo baxo
firaaqo uu haysto jaanis uu iska haysto kuba kaloo laga yaabay iskorisiin inay yihiin oo ay hallaabeen ayuu ku dhex darsamay asagana markii dambe waxaad arkay asagoo sisi u socdo marka jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum ani kelimadayda way iska gaaban tahay xaqiiqatan wax aan aad iyo aad ugu faraxne ayaa halkan ka dhace waxaan leenahay waalidka caruurta iyo macallimiinta intaba u dadaala gacmo waxay tiraahdaa Soomaali wada jir bay wax ku gooyaan hooyada iyo aabaha iyo muxuu ahaay macallinka waa inuu xiriir ka dhaxeeyo hooyada iyo aabihi iyo macallinkiiba xiriir haduusan ka dhaxeyn canuga halka jaanis bay u noqon marka jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum gaar ahaan hooyooyinkeenna dumarkeenna aad bay u mahadsan yihiin xaqiiqatan waxa ilmaha la daala dhaco ee xafladaha imaado ee muxuu ahaay har iyo habeen u taagan waa ayaga ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalinta libaaxa aad ciyaaraysiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka thawaabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatul firdawsa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu kulmiyo hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. مركز كواد إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله أولا وآخرا وهكذا أم هذين يا متشرفته ورمضينا شيخ لوبو شيخ آذن شيخ شافعي يا دمان ورمضان أنتينا كلا سو حاضرتي يا والدينته iyo dhammaan mutakharijiinta tafsiirka quraanka kariimka ah dhameeyay inta ajza ay kala qaateen ay tahay ayaga oge dhamaantiin waad mahadsantiin soo dhawaada wixii wacdi ah waxa noogu filan tafsiirkii noola akhriyay iyo sheekh oo taqiib ka bixiyo sheekh aadan iyo sheekh dhuwow haday noqon lahayd tafsiirka quraanka iyo quraanka fadligiisa sheekh aadan baa nooga hadlay hibadan iyo cadiyadan oo ilaahay nasiiyay subhanahu wa ta'ala barka horkayna yaalana sheekh dhuwow baa nooga hadlay ani insha Allah ta'ala waxaan rabaa laba kelimo oo gagaaban oo baaq ah inaan soo jeediyo ilaahay idinkiis midda koowaad waxaan baaq u jeedinayaa jaami'ul ansaar inta ku heerarsan oo jiraan la ah oo ka kooyihiin hadda waalidiinta hortiisa fadhiya waxaan arkaynay waa wax laga hadlay kuma noqonayo laakiin waxa weeyaan nimcadu waxay ku daa'imtaa wax la yiraahdo shukri waxaan dadka haasanin baad haasataan sheekh Cabdiraxmaan jazaahullahu khayr wuxuu isku darsaday dhowr shay lafdigii quraanka oo dadka baraayo kadalika tafsiirkii oo qof kasta hadana aan ugu dareenin ardada iyo maaragtay tarbiyadii waa waxa la heli karin qof kasta aan haasanin maadaama arintaas ilaahay siiyay idinkana jiiraan in ka dhigay caruurtiina u keenteen warto waxaan codsanayaa jazaakumullahu khayr inaad ugu hambaliyeysaan sheekha uguna duceysaan uguna kaalmeysaan garabna ugu noqotaan bal xafladooyin fara badan buu dhigaaye mar intaad maamustaan saan oo kale la yiraahdo ardadii jaami'ul ansaar iyo maaragtay waalidoonteedii ayaa maanta waxay azuumid iyo maaragtay maamuus u sameyn rabaan sheekhoodii sheekhaasha kale wax dheer wallahi soo sheekha sheegay maraakis badan baa jirta madaarisul khalawa dugsiyo baa jiraan laakiin waxa nuurka meesha ka jiro maan jaami'ul ansaar meeluu ka jiro haduu jiro la Allah waa meel yar jazaakallahu khayr sheekh Cabdiraxmaanow hor u soco idinkana waxa ay leeyahay insha Allah ta'ala sheekha garabsiya maaragtay garabkiisa noqda oo una tahniyeeya insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan rajeynayaa nuurkan aad haasataan inuu maaragtay naga daminin nuurka dhamaan oo haasanaay taas waxa weeyaan waa tii jaami'ul ansaar iyo waalidiintan u diraayo iyo dariskii masjidka waxa ku hareeraysan waalidiinay waxaan rabaa su'aal yar inaan idin weydiiyo su'aashayda waxa weeyaan maanta inaan dabaq dhisno dabaqooyin inaan dhisno guri inaan dhisno iyo caruurta inaan dhisno midkee baa fiican maadaama waalid aan ahay ana ka jawaabi hadana inaan caruurtaas dhisno ayaa waxay ka fiican tahay inaan guriyo fara badan uga tagno guriyaha oo tagtay maanta waxay noqonayaan dhahal andoo aabayahay inta hooyo tahay arurtaas waxa tagto wixii lagu sameyn doono gadaasha ma taqaanid bal waxa laga yaabaa in ciqaab ku madatoba laakiin kuwa meesha fadhaan maanta maartay hadii la tarbiyeeyo tarbiyadooda iyo akhlaaqiyadkooda iyo diintooda maanta laga shaqeeyo hadhow dambe soo xadiiska inoo sheegay
شيئا هذا ينمر إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث حكجري وولد صالح يدعو له كاس بامرة يكوسو دعينا يا هذا دم أمارة إله سبحانه وتعالى أضو قد كاس كجرته ميل عريرية مجدية وعدلاء أيا رب سبحانه وتعالى دعيسا كوش في أمارة الوش في أيا جنا رب سبحانه وتعالى شفت سنوكوجيو أيا أمارة أيا ما كرتا سيادرت إخواني الدنيا جعنت بدك أنكو قبنا وجعنت بدح ولا تنسى نصيبك من الدنيا وصح لكن هدنا وإن أنكو قبنا الدين تينا iyo aakhiradaina gacantan bidig ilaa waxaan adduunyo waa faane way tagaysaa waa maalmo yar maadaama ka socono waxaan uga tagayno haday naga dambeeyaan arurtaas weeyaane aan insha Allah ta'ala aan maartay tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda aan ka shaqeyno gacantan bidigna aan ku qabano taas waxaan u dirayaa waalidiinta iyo cid kasta oo ubadka haasato cidii haasana Ilaahay subhanahu wa ta'ala hasiyo waxa gadaashiisa u soo duceeyo markaan ka baxo maadaama aan ahay macallin aniga macallimiinta aan ka koowahay ayaa waxaan u dirayaa baaq ikhwaani saad ogtihiin beerkaas hortayna yaala arurtaas yar ee sigaarka ah baa lagu dhiibay mas'uul baan nahay waalidka waa mas'uul macallinka waa mas'uul ninka mas'uulka ee mudiirkaana waa mas'uul dhamaantayna waa nala weydiin doonaa ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay mas'uuliyadda wuxuu ka sheegay quraanka iyo xadiista waa lagu sheegay ogtihiin kullukum raa'in وكلكم مسؤول عن رعيته هذا معلن تاي مسؤول باتاي ادي لو كان ساك ارورتي الى لحسا مسؤول باكتاي هندي مسؤول تاي مارتاي معلن كبدح كريسنا عداس مع ardadaas oo imaanayso mas'uul ba ka tahay oo inaad ku daba gasho oo maartay ku maamusho maartay ku maamusho waxa weey mas'uul ba ka tahay waa lagu weydiin doonaa handaad ku fiirsato say ku dayacayaan anigu ogahay macallimiin inay dadaalayaan إلى إمارة جهد بدن أي هرايان هدنا وحان السنة جزاكم الله خير إلى سبحانه وتعالى وحوريه وقفوهم إنهم مسؤولون وحيمان دون تمالين لو يجيني دونه هرت أنت وسوا فريسيو وما وسوا جوجيو لو يجين دونه في مسؤول غادي سيادرتي وحالة يابا ولو أي أنت بدن أي دعين معلمين قار وقت الدراسة أي سعته إلى إسك مشغولان أرورتا كير مشغولان تلفونيال إيو وحيالا مرتين مناسب أين إلى مرتين كدهلان إلهي سبحانه وتعالى أرنتاس وحاويان قف كان دو مسؤول هاي موقع مالين وأرنتاس وأرن خردوا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دا ماشى دماته إلهي سبحانه وتعالى قف رجالك على قلب موسين وحلو كان ماشى وحاويان عنقاس إنا باهي ساترته وقتها سير وماشى كود جوجنا على حساب تمتو وحي سياسي سحقي سمارة هاي إنها كم مشغول سوالف في عين هاي أرنتاس نعرف في عن ماها معلمين تأنو إني جداليان وأرنتاسنا أنتو ذا بدن أي سمينين لعل هنداي دعضو مسأي مرء آتكو دعضه إلهي دينك سبحان رجيني أرنتاس إنا ديب أوغا بحنو مسؤولية داس نصارا شعور كذا أنا درون شعور مسؤولية وحلي رادي أجرتا وقفك إنو حسارا وإنو دريمو جزاكم الله خير انتاس أيان ربي أنيق إنا نقدر صدو كلمة دي أنو مارت هاي إنا ديرين لغا يابا هندال لعل أنسالتينا فمن نفسي ومسزل أي كلمات نفسي دويان ومقستين دع أصيبنا فمن الله وما أنسانيه وحنا كما ارتكتنا إلى الشيطان نذكره وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم شيخ مرة بعد مرسد حد عن قوم بليننا جزء هذا يدل كذا الله كرة قرب قرهرنا وصو إن شاء الله تعالى وجزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني مركو الله سبحانه وتعالى ينكم هذين يا الله ينصر تقليي فرصة جانس كان أنسوق نمت برنامج تفسير وقالن جبينا عرورتين كقالن جبيين أما يبرتين ما هذا الله سبحانه وتعالى وإسكاله وأنا جانس إلهي سبحانه وتعالى ونسيي أين مضنتهي رب سبحانه وتعالى إن لو غمها النقه وعليه النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أو هما الصحة والفراغ لو النعمة أما لما برواقه dadka waxay kaga jiraan hilmaam iyo xasuus la'aan waxaana kamid ah jaaniska
waxaa ka mid ah caafimaadka iyo jaaniska marka labada ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey nicmo ka weyn rabbi subxaanahu wa tacaala uuna siiyey islaamnimada midaasaan rabbi subxaanahu wa tacaala kaga mahadnaqaynaa kadib waxaan u mahadinayaa culammada ka soo qayb gashay barnaamijka yeeritaankoodii soo ajiibtay ugu horeeyo sheekh aadan kusow jazaa allahu khayran waa nin aad u dadaal badan dacwadana in badan ku soo jiray marka 20 sano ka hor waan macallin soo ahaa jazaa allahu khayran najeex iyo barnaamijkan xalaqaad labadaba waan ku soo maray kadib waxaan mahad u celinayaa sheekha macallinka ee tafsiirka akhrinayay dadaalka uu ku bixinayo iyo juhdiga leena wuxuu u baahan yahay tafsiirka marka la akhrinayo dadaal fara badan iyo waqti in lagu bixiyo adduunyadana hadda meeshay marayso wada aragtay ninkii waqti bixinaya ee 3 ama 4 ama 5 bagelahayo marka dadaalkiisu waa xad dhaafay kadib waxaan mahad u celinayaa waalidiinta rag iyo dumarba ka soo qayb qaatay barnaamijkan soo ajiibay eeritaankoodii ilmahooda waxbarashadooda loogu yeeray yacni natiijadii inay arkaan marka khaasatan hooyooyinka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa dadaal aad muujiseen sii wada inta badanna marka taariikhda raacdo dadka wax soo saaray culimada weyn islaamka Imaam Shaafici iyo Abu Xaniifa iyo rag weyn kudi waa rag weyn ay soo tarbiyeen oo agoonimo inta badan wax ku soo bartay marka in badan buu sheekhadan hadii wuxuu yiri la imaado odayaasha doorka dambe hadii la yiraahdo marka odayaashana waxa laga yaabaa inay jooginba oo waxay ku maqan yihiin unguri raadis marka kuwa joogan waa laga yaabaa in la helo laakiin boqolkiiba sheekhadan 20 baa joogta malayna bal heli karaa marka laakiin intii tabartiina bal hadii la yiraahdo doorka dambe soo kaxeeya marka wad ku mahadsantihiin dadaalkiina iyo dabagalka iyo daba socodka aad ku haysaan caruurtiina waxbarashadooda waa midaayada waan ku mahadnaqayaa waxaan kaloo mahad u celinayaa ardadii ayadana tafsiirka quraanka baratay ku sabirtay adkeysatay waxbarashada waxay u baahan tahay sabir iyo dulqaad waxa laga yaabaa inaad fahmi weyso waxa laga yaabaa in hawada iyo naftaada ka qaalib noqdaan oo caruur qeyrkaada oo soo ciyaarayo ama imbiir u jeeda ama meel kale oo socdaad arkaysa waqtigii baad soo hurtay marka sabarka iyo dulqaadkan waa loo baahan yahay oo shaacirku wuxuu leeyahay la astasilanna as-sa'ba wa udrika al-muna wa ma qadat al-a'malu ila as-sabirin yani wax walba ugu adkaadaan fududaysanaya oo qolooyinkan psychology waxay leeyihiin hadii wax ku adag yahay laakiin iska dhaadhicso maskaxaan inuu ku fudud yahay way fududaanaysaa marka wuxuu leeyahay shay walba oo adag baan fududaysanaya yani inuu fudud yahay baan ka dhaadhicinaya maskaxda ilaa aan ka gaaro qasidkan leeyahay فما قادت الأعمال إلى الصابرين يدديله ده يوحى الروح أو رجينا ينا ومصر تقشوا إلا الروح دلقات بدن مويانه مركز دلقات كا وحي كم تاي وحي على لو جار الروح وحو هيكسنايو أما ماشي سي يدديله سوق جاري كم تاي قرآن كان أي بدن بو كبوري فاصبروا واصبروا وما صبركم إلا بالله markan waa shay loo baahan yahay adkaysigaas iyo dulqaadkaas in waxbarashada loo muujiyo wax adagna uusan jirin oo fanni walbana la baran karo wuuna fudud yahay hadaad adiga u aragto inuu maaragtay inuu ku fudud yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barido inuu ku fududeeyo tusaalaha insiinaya waxa jiray in la yiraahdo Imam Kisaayi waa imaam nahwi marka waxa ku adkaaday fanniga naxwada marka in badan buu ku celceliyay wagoodi kari waayay kadib uu asoo qus joogo oo inuu iska dhaafaba ay ka taagan tahay yaa wuxuu arkay qoranjo
rabto darbiga inay korto marka darbigii bay kortay way soo dhacday mar labaad bay isku dayday way soo dhacday mar saddexaad bay isku dayday way soo dhacday intaas oo uu dhuwanaya oo fiirsanaya markii tobnaad bay kortay mise markii 12aad marka wuxuu fikiray maadaama xayawaankan yar inta laag wuxuu rabay uu ka dhiidhiyay anoo bini aadan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodta ka badan isiyeen kar waayo macquul ma tiibu tusaale ka dhigtay dib buu kutubtiisa u qaatay Ilaahay wuxuu qadaray inuu noqdo imaamka naxwada marka waxyaalaha xayawaanaadkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar qaar waxa laga yaabaa inuu sabab kaaga dhigaba inay wax ku baraan oo waa taqaana bini aadanka sida la soo aaso shimbir baa baray intaasaan jeclaystay inaan maaragtay ku darsado kelmadeyda waan mahadsantihiin dhammaan rabbi subhanahu wa ta'ala waxa ka rajaynaynaa inuu caruurta noo hagaajiyo mustaqbalkooda anagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu san nafidnayna rabbi subhanahu wa ta'ala noo naxariisto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخواني أولا إله ما أسكال سبحانه وتعالى نمعوين فربضنا إله نوغلي ونسوكو بكرين هذا اللي كدب الحضور كأيو شيخ عبد الرحمن يوم مرتدى دمانتين ومهسنتين جزاكم الله خيرا كنتي صويرت الله بصدي وحوقا وسود بدعير لهذا شيخ وان بلنسانين mar hore inaan imaaday ahayd marka mashquulka adduunka iska badan inta kadib runtii Sheikh Abdurrahman jazakallahu khairan aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka uu geliyay ilmaha iyo qariyada nin aad maartay noo anfacay weeyaan sidoo sheegayna tafsiirka aniga asiga oo fadhisanay in ilmaha quraanka xifdiyay quraanka bartay macnihiisa la baro runtii kaalintaana waa ka soo baxay si khaasatan waxaan dhihi karaa qariyadeenan buulo dakhare ama buulo masalaali Missouri baa u dhaxaysa aan malaynay aad buu noo anfacay ilmahana ilaah waa ku anfacay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ardadana waxaan leenahay dadaalkiina sii wada tafsiirka quraanka waa jaamacadda islaamka ama culumta islaamka meesha ugu sarreysay weeyaan quraanka waad aragteen wuxuu ka warramayo akhriya adduun wax dhacay iyo wax soo socda iyo noloshii dastuurkii dhanaa waa maartay macnaheedu quraanka ku wada jiraan ardadana waxaan leeyahay macaanida quraanka cilmi ka sarreeyo la barto ma jirtee halka ka sii wado si fiican u sii dadaala martida inoo imaatay shakhsiyaad الشيخ الوالد شيخنا محل جرى الشيخ آدم وسجنا فرنتي داعي مقالة آدي آد بين سودوين نكسود وهذا مسجد كنا جامع الأنصار آد مهسنتهين وخاصة أنية الشيخ نجاح والسوقار ومارتي معلم بنوها الشيخ آدم وحاكل الشيخ أحمد سياد سجنا دوبو أرضي بان سلوى نقولنا جلاس بان النجاح وصاحبكي سجن هذا علماء النجاح ووين مارتي آخر سكوميدي هاي وإن سود وين جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم جزاكم الله خير